السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada janaalkayga Fardowsi isku filan waa mar kale iyo new video. Beliis haddii ay tahay markii kuugu horeysa oo janaalka soo booqato waxaan kaa codsanaa inaad subscribe gareyso, asxaabtaada kale la sii wadaagto. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. asxaabay soo dhawaada, aad iyo aad ayaa idin soo dhaweynayaa. alxamdulillaah, ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay isoo celiyey mar kale anuu caafimaad qabo. waxaan rajaynayaa idinkana inaa caafimaad qabtiin. inta xanuunsan Allah subxaana wa tacaala Allah caafiyo, inta dhimatana Allah subxaana wa tacaala Allah u naxariisto, inta safarka Allah u fududeeyo, intaan owlaad haysan owlaad baariyin ilaahay subxaana wa tacaala Allah ku irsaaqo, inta xabsiyada owlaad uga jiraan ilaahay subxaana wa tacaala Allah uga soo saaro, inta gaal ka qaadatana gacantooda Allah subxaana wa tacaala Allah ku soo celiyo. qof walba oo muraad lena muraadkiisa Allah subxaana wa tacaala Allah u sahlo. ummadda muslimiinta oo sanadkan xijinayso oo hooyaday macaan ku jirto ilaahay subxaana wa tacaala acmaashooda acmaal la aqbala Allah subxaana wa tacaala Allah uga dhigo. ilaahay xijka ha u fududeeyo, wax yaraa u haray. inta dhiman ilaahay subxaana wa tacaala salaamo Allah ugu dhammaystiro. qof walba uu haminaya sideedoo kale inuu soo xijiyana ilaahay hamigiisa Allah gaarsiiyo. ilaahay ha uga waco beydkiisa, ilaahay ha noo wada kaso aniga iyo idinkaba. ilaahay subxaana wa tacaala ha noo kaso beydkiisa inaan kusoo xajino. asxaabay soo dhawaada, allahuma aamiin. soo dhawaada, aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynayaa. fideoga shalay aan soo geliyey oo uga hadlayay Kenya iyo Masar. horta falcelin badan ayaa kasoo laabatay, walaalo badanna snaabka ayay igula soo xariireen, igula wadaageen gabdho ku nool Kenya. marka waxay ii sheegeen Kenya xaaladeeda inay isbedeshay, waxbarashadeeda tayadeeda ee hoos u dhacday. waxyaabo badan ay sheegeen. insha Allah tacaala intaa ku faahfaahin doona biidhnillah inta aan ka gaarno. maciishada Masar oo bisha dambe la dhahana koraa loo qaadaan insha Allah tacaala. wixii kasoo kordhana ayadana inta idinkugu faahfaahin doona biidhnillah. soo dhawaada ayaa idin leeyahay. janaalka hadduu ku subscribe gareysnayn please subscribe garee. haddii aa hore noola joogi jirtana aad iyo aad u mahadsan tahay. leegtaa naga iloobina, see sheer gareeya. aad iyo aad ugu mahadsantihiin walaalaha mar walba sheer gareeya fiidiyodeydana waa ugu mahad celinaya. walaalaha mar walbaba leegta saarana aad iyo aad ugu mahad celinaya, aad idinkugu mahad celinaya. please more like sii saara insha Allah. ana dhiirigelinay ii tahay, idinkana waxba idinka dhibi mayso. marka insha Allah saan usoo dadaalo fiidiyoyada aan usoo badayo biidhnillaahi tacaala baari hadduu ilaahay yiraahdo. iyo wax walba oo warbixinaa oo ku saabsan meelaha loo hijroodo insha Allah oo caruurta lala aado biidhnillah. waxaan kale oo rabaa insha Allah inaa wareysi idinkaga diyaariyo biidhnillah Muqdisho. haddii aad danaynaysid insha allahu tacaala waxyaabahii jeceshiin inaan weydiiyo hoos kusoo qora biidhnillahi tacaala. walaalaha jecel inay u guuraan Muqdisho insha Allah, abaayo Muqdisho deganaa insha Allah si fiican aan u wareysa doonaa biidhnillah hadduu ilaahay yidhaahdo. aad iyo aad u mahadsantihiin. soo dhawaada. Kenya sidaa qof walbaba ogyahay walaalo badan oo Soomaaliyeed degan, ilaahay subxaana wa tacaala Allah ku xifdiyo. waa wadan Soomaalida aad iyo aad ugu badan tahay, ganacsi Soomaaliyeed oo badanna uu yaalo. Soomaaliyana u dhow sareexa. qofku markuu u guuro uusan dareemeynin inuu qurbo degan yahay. sida badanna dadka saasay u aadi jireen. midda kale u aadi jireen waxay tahay maadigeedu aad iyo aad u fiicnaay. hadda walaalo badan waxay ila wadaageen maadigeeda inuu hoos u dhacay Kenya. waxbarashadeedina ay bareefad iska noqotay. waxbarashada oo Kenya systemka maaha. awal waxay lahaayeen British system iyo Kenya system. marka Kenya systemkooda ilmaha oo dibadaha laga keena lama qabsan karaan sida walaalaha ila wadaageen. British systemkoodina aad iyo aad asoo qaali u ahaa oo lacagtiisa aan lacag oo yacni aan laga bixi karin ay tahay. haddana tayadiisa way yaraatay sida walaalaha qaar dhowr qof oo islahayn oo is ogeynin ay ii soo sheegeen. marka walaalaha waxay kaloo ii sheegeen in
maxaa la dhahaa tuushina guriga ku qabtaan tuushinka saacadii 1,000 shilin oo Kenyan shilin ah iyo ka badan inuu u qaadanayo soo marka haddii aad lacag tiro badan aad ku dhiibto iskoolkii haddana maxaa la dhahaa guriga macallimiin aad keentid nolosha awal ee qaali hore u eedo guriga $1 ku dhowaad oo ahaa iyo $1 sareexa qof ku noolaan karto ma jirto marka waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaanahu watacaala allah idin fududeeyo walaalaha degan walaalaha kale waxay la wadaageen aad iyo aad inay ilmaha ugu xanuunsadaan ilmaha markay aad u yaryaryihiin special horta meel walbay joogaan ilmaha xataa dibadii aan ka imaana ee taa xataa ilmaha markuu 5 sano ka yaryahay wuu xanuunsadaa marka ilaahay ha noo xifdiyo sida ii sheegeen mar walbaba blood infection ayaa laga sheegaa subxaan allah ilaahay subxaanahu watacaala allah u caafiyo awlaadana allah u xifdiyo marka lacagta ugu badan waxay ka gashaa xagga dhaqaatiirta iyo xagga caafimaadka iyo waxbarashada so marka haddii aa waali tahay Kenya aa ku nooshahay mar walbaba qarashkaas tirada badan uu ka baxo waxbarashadaadina yacni sida aad rabta aysan ahayn oo ku qanacsanaynin please waxaan ku dhihi lahaa awlaadaada dhul gaal ha iskaga celinin meel kale oo ka wanaagsan oo is leedahay ilmahaada ku korsan kartaa raadso muhiimaddu nolosha oo dhan maaha maadi imisa maanta shahaadooyin jaamacada haysato noloshana aan waxba ku haysanin cunugaaga muhiimadda waxay ku tahay inaad bartid diinta sida kaloo gabdhaha ay la wadaageen waxay dhaheen macallimiinta Kenya ilmaha aad iyo aad u garaacaan diintii oo dhanba ayagaa necbaysiiyeen ay dhaheen marka quraan keliyahana la baraa axaadiis kale ma jirto maxaa la dhahaa caqiido kale oo la bara ma jirto marka haddii ay macallimiin fiidiyogan daawata ay jiraan oo Soomaaliyeed oo Kenya ku nool please ilmaha dilka ka daaya axaadiista maxaa la dhahaa iyo tafsiirka quraankana bara quraanka ilmaha inaad jeclaysiin waaye quraanka in ilmaha lagu dilo ma insha Allah kilib yar waxaa haya Sheekh Ayman Suwayd qaarigeena oo uga hadlayo oo ilmaha inaan la dilin lagu qaylinin zaa'id qayle ah quraanka aanan culays looga dhigin ee la jeclaysiiyo marka ilmaha quraanka jeclaysiin insha Allah ilaahay subxaanahu watacaala Allah noo jeclaysiiyo nolosha maxaa la dhahaa oo Kenyana aad iyo aad ayadoo qaali u ah ayadoo diintii ay rabeen ay oolin maadigooda dadka ay u aadayeen oo hoos u dhacay marka ilaahay subxaanahu watacaala Allah idin fududeeyaan leeyahay walaalaha reer Kenya nolosha Masarna bisha dambe waxaa lagu dhahay aad iyo aad inay u kici doonto oo xoog ay u qaaloobi doonto ambuubadii $1 bar $2 camal loo soo cabeyn jirin inay $5 tagi doonto marka dadka qaar haddii ay maqlaan waxay dhihi doonaan $5 ma lacag waa ogahay Kenya oo kale hadda $35 iyo ka badan ay ku cabeystaan Soomaaliya sidoo kale laakiin anaka aad iyo aad aynu ugu jabnay haddana reer Masar dadka sida badanna ma haystaan ambuubadaas hadda anoo kale gurigeyga oo leeyahay marka insha Allah fiidiyowga dambe aan ku faahfaahin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.